بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال. soo dhawaada. Hore waxaan u soo sheegnay habka aad ku heli karto kombiyuutarkaaga wireless aad ku isticmaashay mid hore iyo mid dambaba. Sidoo kale waxaynu u soo aragnay iyadoo click-click oo aad ka tegayso wifi icon-ka iyadoo by command oo cmd command intaan soo kicinay aynu ka soo saarnay wireless ka isticmaalayso. haddii aadan muuqaalka daawan soo daawo insha Allah wuxuu ku jiraa channelka. maanta waxaan isku daynaa mobilkeena haddii uu ku jiro wireless ba hadda igu ay active asad ujeedaanba wireless kaas ayaan u baahanay saaxiibkay inaan la share garayo ama uusan garanayn passwordkii ama wuu ilaaway ama si kastaba ha ku timaadee waxaad jeclaysatay inaad la gashato wirelesska ugu connect garaysan mobilkiisa marka kani stepkan wuxuu kaliya qaabilsan yahay inuu wirelesskaas ku connect garaysan yahay mobilka. marka waxaan isku daynaa insha Allah inaad la share garayn karto anagoo ku tusi doonaa habka aad u mari doonto. stepka koobaad waxaad soo kicin doontaa wirelesskaaga ayaad tegi doontaa wireless buttonkaaga markaad tagto hadda aniga waad aragtaan somtel ayaa iigu xiran waxaad taabanaysaa settingka yare hortiisa ku qoran calaamadda yar ayaad taabanaysaa. halkan markaad timaado waxaad taaban doontaa QR code meesha ku taalo oo laga yaabo in mobilada badankooda ay halkan ku leeyihiin hadduusan ku lahayn meel kale uu ku leeyahay mobilada dambe oo dhan waad ka heli kartaan. QR code ayaad taabanaysaa waxaan raadinaysaa QR codeka noocaana. marka aad hesho QR codeka noocaana magaciina xagga sare kaga qoran yahay waxaa weeye stepka waad nala socotaa. Scan this QR code on another device to connect it without entering the password. marka adiga oo aan passwordki gelin ayaad gashan kartaa haddaad kaamarada mobilkaaga tusto waxaad heli kartaa passwordkii. imika waxaan ku tusi doonaa website kaa caawin doona inuu ku tusiyo QR codekan passwordkiisa. marka insha Allah waxaynu aadi doonaa hadda waxaynu ka qaadi doonaa screenshot. marka screenshot is important inaad screenshot mobilkaaga ka qaado adiga ayaa yaqaana halka screenshotka mobilkaaga laga qaado. haddaan screenshot baan qaaday waad ujeedaa screenshotkan ayaan kasoo gelin doonaa xagga websiteka. waxaan aadi doonaa xagga iyo websiteka chromekaaga ama browserkaad isticmaalso soo kici waxaad qoraysaa zxing.organization organic soo gaabinaysaa websitekan ayaan booqan doontaa. waa tahay sidaad ujeedaan halkan wuxuu kuu soo dhigay meeshii laga soo upload garinayay noocu doonaha ahaado QR codekii haddii aad soo save garaysatay isla halkan unba choose file odhanaysaa iyada ayaanad kasoo gelin doontaa insha Allah tacaala QR codekaaga. waa tahay incoming window ayaa inoo ogan garaysan markaa si aynu arki karno si aad u arki karto waxaan ka dhigayaa browser caadiya kan ayaanan ka raadin doonaa searchingtiisa xing baan leenahay zxing.org. saad ujeedaan websiteka halkan kaaga soo baxay isla isaga ayaana taabanaysaa. waayahay waad ujeedaan hadda incoming window hadday ku active garaysan tahay kuma soo saaraya browserka marka browserka caadiga baan u wareegay. waayahay hadda waa kan filekii ayuu ku leeyahay soo qaad. marka waxaad samaynaysaa filekii ayaad soo qaadaysaa screenshotkii ayaa halkaa kasoo gelinaysaa. marka haddii baad soo geliso immediately waxa uu markiiba ku geeni doonaa websitekaaga. hadda waxaan samayn doonaa sawirka ayaan editing ku samaynaya waxaan ka jarayaa maadaama aad u dheer yahay sawir gaaban ayaan nooga dhigayaa doono QR code clear ka dhigi kartaa si hore ugu generate gareeyo QR code intaas leeyahay. waa hab yar oo fudud oo aad ku heli karto wirelesska markaa ku connect garaysan mobilkaas. marka safe ayaan odhanayaa isla meeshii unbuu igu save garaynayaa halkaas ayaan kasoo gelinayaa hadda. waa tahay browserku wuxuu nagu siinayaa inaan soo qaadano filekii halkan ayaan kasoo helaynaa filekii. marka screenshots ayaan booqanaynaa
halkan ayaan kasoo gelinaa subscription waa tahay marka intaas sameyno submit ayaan leenahay haddii aad URL ka hayso iyadna waa okay marka hadda saad ujeedaan waa kana wuxuu soo saaray passwordkii iyo magacii iyo webbi ee ku yahay dhammaanba intaan ayaad ku galaysaa QR code-kii oo lambarina waa kan waxa weeye waad ku tijaabin kartaa decode success saad ujeedaanba waad ku tijaabin kartaa adiguna kaaga mobiladaada iyo waxaad haysato haddii aadan videogii hore aan computer ku samaynayna isla computerka ayaad kaga daawan doontaa isagoo computerized waa computerka sidaad u heli karto password kastoo lagu isticmaalay waxaad ka heli doontaa insha allahu tacaala isla youtube-keena aad baad ugu mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inahaas ayaan jeclaystay inaan maanta idinla sheer gareeyo aad ayaad ugu mahadsantahay daawashadaada